dhawaad 100 qof oo muwaadiniin reer Soomaaliland ah ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Ankara ee caasimadda wadanka Turkiga. Muwaadiniintan oo ku xayirnaa dalka Turkiga ayaa waxay maanta ay ka ambabaxeen hotelka Soomaalidu leedahay African Sofres ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Ankara, kuwaas oo bas looga qaaday laguna geynayo magaalada Istanbul oo maalinka berri ay ka dhoofi doonaan. Safaaradda Soomaaliya ayaa ka shaqeysay sidii muwaadiniinta loogu celin lahaa dalkoodii. qaybo kamid ah dadkii ambabaxayay ayaa u mahad celiyay safaaradda Soomaalida, waxaana ay sheegeen in safaaraddu ay heel iyo hoob ay sila garab taagtay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu celin lahaa magaalada Hargeysa. qaybo kamid ah muwaadiniintan ku xayirnayd wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ayaa waxa ay u mahad celiyeen maamulka iyo mas'uuliyiinta maqaayadda African Sofres oo ay sheegeen in si fiican ay ula mucaamileen tan iyo intii ay lagu guda jiray xayiraadda oo jiray xanuunka COVID-19. waa kuwan iyagoo markaasi arrimahaasi ka hadlaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan nahay dadka ku xayirnaa Turkiga. hadda waxaan joognaa Ankara, ayaan ku ambabaxaynaa Istanbul baan tagaynaa haddii Ilaahay ka dhigo, hadda Ilaahay laga ogolaado. dayuuradaan raacaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. waxaan tagi doonaa Hargeysa. dadkayga gudidaha baa noo gurmaday Dr. Awkombe iyo safaaradda. Ilaahay sharaf iyo karaamaha ka badiyo, annagu nabadgelyo noo soo duceeyo. Ilaahay idamkiisa waan ambabaxaynaa. عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم عم كسر بحنا مجال دي تقرأ أنكرة اسطنبول بان كسرنا وحنا صوف زيي أو شرف كرامة وهينا دكتور كيجا عبد الرحمن أو كومبه أنو هينا جدال كنا جري يشوف تقولي يبدأ نور رفاعة يسلم وضنا كاوبة الهين يجود الشرف له أو فيها جيسية وصاصية من والبله وحن سجارة وسيامانية سفارة الصومالية وداني نوفر كريستين أنا حلي كان نوع ديجي أنا بس نقول أنا وراقها نجح عيرنا وده الناس تميني أو حنا الناس ورتقشين سفارة وانا مانينا وحنقول لنا جزاك الله خير. ما أنت أو أي تاريخ وتحيي هم كيتون يعني قصة بحنا أنكرة عاصمة تركيا أنا وصلنا إسطنبول وأروح حساب دون هذه لا يدارو وحنا هيدا في كي بسمال لنا هرجيسة عاصمة كوي لكن لبنان كوجود عاي saddex bilood baan ku xanimay halkan oo maartay aan ku jirnay Londonka. saddex bilood waxaan deganay restaurant-kan inaga dambeeya oo qaybtii hurdada iyo cuntadiiba lahayd. runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa mulkiilayaasha hotelka. waxa weeyaan hotel kulmiyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ka yimaadaanba, hadday Kenya ka yimaadaan oo hadday Itoobiya ka yimaadaan, hadday Jabuuti ka yimaadaan iyo hadday Soomaaliland ka yimaadaan ama Muqdisho Soomaaliya caasimadda ka yimaadaan. waa barkulan ummadda Soomaaliyeed isku timaado. runtii aad baan ugu mahad celinaynaa, si fiican baan ugu soo dhaweeyay. dadkana waxyaabaha uga baahdaan magaalada maadaama waddanka lagu cusub yahay had iyo jeer way hoga tusaaleeyaan oo way tilmaamaan. waan ugu mahad celinaynaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay annagoo diyaarad laga leeyahay Somaliland ay naga soo qaadaso Turkiga oo u socona Hargeysa oo garoonkii caalamiga international airport ka soo degi doona. taasaa maartay wax loo dhigaa bayna jirin oo ictiraafkii oo sidiisii u socda ah. aad baan Ilaahay ugu mahadcelinayaa subxaanahu wa ta'aala in diyaarad dalkaygii ka timi oo dalkaygii laga leeyahay ayna qaado oo waddankaygii la geyso. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa safaaradda Soomaalida ee magaalada dalka Istanbul dalka Turkiga oo noo fududeysay safarkaygii. insha Allah waxaan rajeynayaa inaan si nabad ku tagno waddankayga gaar ahaan magaalada Hargeysa. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka warbaahinta. magacaygu waa Bashiir Cabdullaahi Maxamed. runtii maanta waxaan ku faraxsanahay inaan si nabadgelyo ah aadi doono dalkaygii insha Allah Somaliland Hargeysa. marka waxaan u mahad celinayaa maamulka hotelka African Sofres sida ay maanta noo suguutinayaan. runtii African Sofres waa hotel dadka Soomaaliyeed oo dhan ku soo yigtaan ay soo degaan oo caawiyo oo hadday noqoto tilmaamaha iyo hadday noqoto warbixinta waddanka. African Sofres waad mahadsantihiin oo leenahay mulkiilayaasha. runtii xarun weyn bay noo sameeyeen. waxaan u mahad celinayaa guddigii ka qayb qaatay mabixinteenii uu kow ka yahay doctorkeenii Dr. Abdurrahman Awkombe oo runtii kaalin wanaagsan ka qaatay. sidoo kale Cabdiraxiim Bacado oo isaguna ahaa dadkii guddiga howlwadeennada, safiirka Jaamac Cabdullaahi Ciidid oo isaguna kaalin lahaantiisa aan waxba ka socon lahayn safarkayga, iyo howlwadeennada safaaradda iyo dhammaan inta Soomaali ku hadasho. waxaan leenahay safar wanaagsan. African Sofres waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin. أنا أقول لك مجاعية
iyo magaca dugta ganacsatada Soomaaliyeed iyo magaca Africa Safras hadana nahay maamulka Africa Safras iyo milkiilayaasha waxaan leenahay horta waxa mahad leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta noo fududeeyay inaanu ka qayb qaadano sagootinta walaalahan Soomaaliyeed ee halka ku xiriira inagoo halka ku martigelin maanta oo ay dadka ka baxayaan oo ay hadda diyaar u yihiin taa oo yani farxad aad noo saameynayso anagoo dhan Soomaaliyeed waxaan nahay dad walaalo ah meel kasta oo wada joogno marka waxaan ugu talagalnay maanta bishii 17 bishii 6 2020 waxaan ugu talagalnay wadda baxaysa in halka ku sagootino aan dhahno Ilaahay samaaydu ku geeyo taasoo ay ka wada qayb qaateen ummadda Soomaaliyeed iyo safaarada Soomaaliya oo gacan weyn ka geysatay sidii ummadda u ambaxin lahayd marka waxaan leenahay wixii ka qayb qaatay arrinka ummadda Soomaaliyeed ku fududeeyay jazaahum Allahu alf jazaa anaguna waxaan leenahay wadankii ku taga si sama ah dadka ummadda Soomaaliyeed ee dibadaha jooga waxaan leenahay ku soo dhawaada Turkiga khaasatan Ankara Africa Safras oo idin hayo jiifkii iyo raashinkii labadaba waxaan leenahay gacmo furu ku soo dhawaada